الله الرحمن الرحيم. وسلامة يا إذا عدى ولا لو هرت عنك إن كسر جد قبل كبكورة معي خاصة دقمة علبة دقمة تيجلو خبروا واجد حضر سدح شنطة دقمة واي قبل كبكول مركز هدان عن صور كاسيو سيد اللود دقيقة هاي قبل ك بس الدقموين كايجا الله سعت الدقمة علبة هاي كنت على حد بيانات كإثيوبيا كنت على سلقة وحمرة حدك سلق هوستي سمرة dadka hadda sheegaya oo leh waa dhageysan aniga xalay degmada Ceelberde degmada aata degmada yeed lahaa horta waxa fiican degmada waxa ay tahay in la ogaado degmo waxa la yiraahaa degmadii tuulooyin leeyahay Ceelberde saddex tuulo leedahay saddexda tuulo waxa waaye Salkudooble Qurac Joome iyo Ceelmagad waaye saddexdaas degmo midna kama degaan ay saddex tuulo midna kama degaan degmada Ceelberde oo laftigeeda ayay qaybta deegaan waa qaybta Itoobiya horta dadka hadlaaya ma Soomaaliya ama waa Itoobiya horta marka hore in la soo jaalsaba ma Soomaalida Itoobiya ama waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka xildhibaanka waa loo yeeray meesha ka tagay heebahaan buu u tagay reerka iyaga meesha degan buu u tagay mooyee aqoon uma laha deegaanka kama soo jeedo marka horta waxa ficnaan lahayd markuu asaga hadlaayo inuu aqoon u leeyahay deegaanka dadka deegaankaas hadda ka hadlaayo deegaanada ay sheeganayaan haba yaraatay hal tuulo kuma laha hal tuulo annagu laakiin ma cadeyn karno niman ganacsata iyo niman muxuu ahaa shaqaalaha inay degan yihiin waa laga yaabaa xildhibaane adoo raalliya degmo waxay degmo ku noqotaa tuulooyinkay ku noqotaa degmada Ceelberde saddex tuulo leedaan ku dhahay marka degmada laga reebo saddex tuulo leedahay saddexda tuulo waa Salkudooble Qurac Joome iyo Ceelmagad waay saddexda tuulo midna kuma laha laakiin degmooyinkan kale ka waran marka yeeg iyo aata ka waran aata degmo maaha waa meel daran ah xoolaha ku darmadaan waayo waxayna ka tirsan tahay degmada Rabdhuurayna ka tirsan tahay waa tuulo kamid ah degmada Rabdhuura waay dad qaxooti ah sida qaxootiga hadda digli mirflo uu degan yahay xamar oo kale dad qaxooti ah meesha soo degay hal tuulo oo ayaga ay leeyihiin kuma taalo marka aniga waxaan arintaas aan kaga kaaftoomayaa oo aan rabaa shacabweynaha Soomaaliyeed iyo international community-ga iyo inta wax garadaba in wafdi loo diro deegaanka asaga dadka ayaga meesha ay degan yihiin ay tusaan Soomaalida iyo ummadda ay ku qanciyaan oo yiraahdaan anaga halkan aan degannahay tuuladan aan leenahay tuuladaan leenahay saasana loo qadinay yiraahdaan annaga maamulka la dhisaayo waxa loo dhisayaa Soomaaliya loo dhisayaa looma dhisaayo Itoobiya looma dhisaayo kilinka sharaad looma dhisaayo dadkaas waxay wax ku leeyihiin kilinka sharaad wax ku leeyihiin haddayba ka soo galaan Xuseen Cabdi Xalane aabihi iyo asagaba kilinka shanaad ayay ku dhasheen laakiin dawladda Maxamed Siyaad maadaama aan waxba la kala sooceynin sidaasay degmada ku soo galaan aabihi uu duq magaal kaga noqday xildhibaan afraale adoo mahadsan sidaad ka warhaysaan dawladda Soomaaliya hadda ku jirtaan Itoobiya meesha ma joogto dawladda federaalka ku wada jirtaan siyaasiyiin baa isla tihiin maxay tahay waxa isku fahmi laadihiin oo isla qaybsan laadihiin marka waxaan isku fahmi laanahay waxa waayo ninka hadduu wax dhicid wax soo dhicinta waa ku dhib waxa waayo Jubbaland ba waxa iyaga lahayn ka qaateen haddana waxay rabaan muxuu ahaa bakool haddana inay waxa iyaga lahayn ka qaataan anigu waxaan ogolahay ninkii hal tuulo ku leh xaqiiq in la siiyaan ogolahay waxaan u soo joogo aan taaganahay nin alla oo deegaankaas degan oo tuulo ku leh oo caanaha keenayo qoryaha keenayo oo muxuu ahaa bulshada keenayo oo xaafada keenayo in wax laga siiyo marka waxaan rabaa aniga dadka qaylanayo oo annaga muxuu ahaa waa ka baxnay meesha iyaga leeyihiin horta harrastaan oo meesha rabaan ku darsadaan hadday rabaan Jubbaland ku darsadaan hadday rabaan Hiiraan ku darsadaan laakiin meesha ay leeyihiin alrabaa in la ogaado su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay dabcan marka wax la dhisayo maamulka waxa wax lagu saleeyaa deegaan dadka meeshay degan yihiin habka baarlamaanka loo xuleeyo laftigiina idinka xildhibaanaad tihiin koraad kala socotaan waxbaad ka og tihiin miyaanan mudnayn in lagu daro dadka deegaanka oo qaybta ay yeelan karaan la siiyo aniga shakhsiyadda aan waxba qaybanayo laakiin qayb la yiraaho oo ilaahay xaqiisa aan u hadlo aniga Ceelberde dadka jooga oo magaalada Ceelberde laftigeeda degan aniga hal xubin waa siin lahaa laakiin cid kale oo wax kula deegaankaas ma jirto sababtoo waxa waaye deegaan wax lagu qaataa muxuu ahaa dad iska socdo wax lama siiyo qoraan waxaan ku yiri waxaan raali ka aniga in wafdi hatta idinka aad warbaahinta aad ka mid tihiin in la diro la yiraahdo xageed degantii dadka hadlaayo aw deegaanadiina aw tuulooyinkiina
degmada waxay degmo ku noqotay tuulo ku noqotay tuulada aad leedihiin oo hoos timaado muxuu ahaa degmada aad sheegaysaan oo Soomaaliya ku taalo waa xagee waa ku gartay kulli waxa waaye dhanka Ethiopia waayo waa kilinka shanaad waayo waan ku fahmay darteeda inay muxuu ahaa si boob wax ku qaataan bay rabaan maya muhiimadda xildhibaan waxay tahay in Soomaaliya wax isku darsato oo federaal la noqdo adinkoo xildhibaano ah ayaa laftigiina ogol oo wax diidanayn laakiin waxaan rabaa bal degmooyinkan hadda la sheegayo ee la leeyahay koonfur galbeed way ka go'aan yeeg iyo caato inay degmo yihiin miyaa muran ku jira macnaha yeed degmo maaha caatana degmo maaha degmada yeed markii hore ahayd 80kii ayaa laga soo qaaday rabdhuure degmo laga dhigay degmada waa rabdhuure gobolka Bakool waa 5 degmaan ku dhahay waajid rabdhuure alberde tayeglow xudur waayo wax marka caatada hadda la leeyahay degmo waayo waa tuulo waayo ceel waayo 114 ceel baa ku taala waa meesha daranta xoolaha isku yimaada qolada Ethiopia ka timaada qolada Soomaaliya ka timaada geelada meesha isku waa meesha sayidka ka uu muxuu go'ay ka taliyo muxuu ah geela daranta jooga muxuu caata uu ku leeyahay waayo meeshaas waa meel hatta ka caagan deegaan ahaan marka dadka deegaankaas ay joogaan looma ogolaata in la dego waayo geela ku darmado marka sidaa darteeda meeyo aniga hadal badan iyo muxuu ahaa qoladan koonfur galbeed way qaylinayaan kismaayo u qaylinayaan qaylo ka gara furaha waxaan ahayn anigu waxaan ogolahay oo raali ka ahay deegaankana si fiican aan u aqaanaa waa ku dhashay waa ka soo shaqeeyay dadka hadlaayo deegaanka ay leeyihiin inay ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka tusaan yiraahdaan war annaga tuuladaanada waatana tuuleedlay way aniga tuulan kugu sheegaya xaduudka tuuleedku ku yaalo gobolka Soodwiis waxay ka soo bilaabataa المجد وأنا صالح حدثها وجيران واي المجد قرع جومة سالكو نوبلة البد سحر سولي لا هاي بدح السولدو أيها حال قلت كم دقنا محضنكم لها شيء وحبي الله ما أرت حلبان مركز لقاها الله أرنت وحوذا قيب سجا محا وح لقوا صلا يا هرت وح لقوا صلينا الدجان بلقوا صلينا يا ما كقفك هدونا دجان هدو ماشي كله هدو صلاهين هذا يا عدين كرو سياسة الصومالية وحال هذا جهورات فربضنا كجرو وجهه waxa cadeyn karo waxa la yiri waxa la sheeg waxa isku saadamo aniga waxaan raali ka ahay diyaarna waahay waliba qarashka inaan bixino wax ka bixino ogolnahay in wafdi xaqiiq raadin la diro la taga eelbada gawaari la qaato degmada eelbada meeqay tuulay leedahay saddexda tuulo la tago waryaa degan feerkeed degan waa ku gartay yeeg marka nin haduu hadlo aan wax u qiraayo waxa waa jijaalo waayo degmadan waxay degan yihiin eelmada degan yihiin qurac jabay degan yihiin talkadooblay degan yihiin degmadan oo waxaan rabaa degmooyinkan hadda la isku haysto yeeg iyo aato yaa degmooyin ka dhigay iyaga yeeg iyo aato degmadooda haba ana ma aqaan ay kulli ayaga haysta muxuu ahaa xukunkan ayaga haysta afkan ayaga haysta degmo uma aqaano mana aha aniga Bakool baan ahay 5 degmo waan ku dhahay Bakool waxa waa ogaalkaaga ma jira cid degmo u magacooday xitaa maamuladii ku meel gaarka ma jirto xitaa maamuladii ku meel gaarka ma kala fiiriyo ma jirto ku dhahay ma magacaabo karaaba sharciga waxa waaye sagaashan iyo kowdii degmooyinka uu ka tagay maxamed siyaad waxba lagu madar karo waxna laga madimi karo waxa kale waa wax la iska sheeganayo waaye haddii hataa la yiraahdo degmo waaye aata la yiraahdo waxba kuma yeelan karaan ba iyaga laftooda waaya xildhibaan Soomaalida waxay ku mahmaadaa si xal loo helo bal arinta ku saabsan wada qaybsiga iyo wada deegaanka gacmo gel jira hoosa loo dhaqaa arinta bal ka waran labada dhinac miyaysan ka wada hadli karin maamulka koonfur galbeed iyo dabcan dadka halka ka soo jeeda si waxa ay isku haystaan loo ogaado wada hadalna looga galo walaalo horta nin wax boobay nin muxuu ahaa isdifaacayo isma qancin karaan aniga laakiin waxaan raali ka ahay Soomaalida kale oo waxa la yiri hooyadii laba dhashay col bay dhashay hooyadii saddex dhashayna masaxay dhashay Soomaalida kale oo deegaankaas waxba ku lahayn in muxuu ahaa odayaashii dhaqanka mas'uuliyiinta intay baxaan meesha la tago la maro la yiraaho war degmada Elberda meeqa tuulay leedahay degmada Rabdhuure meeqa tuulay leedahay yaa degan waa kee qoyskee waay in la yiraaho hadday saas wax ku soo helaan wax uga soo baxan in la siiyo aniga wixii xadbeenaadkaas Ethiopia ku jiro aniga waxba igu malaha waa dawlad kale waay daris baan nahay walaalaan nahay waa iska dhex safarsanaa waa soo daaq waa isku tagnaa laakiin xuquuq iskuma lihin xuquuq darisnimo isku lehna maaina xuquuq wax wada lahaan iskuma lihin nimanka ayaga tuulooyinkooda u dahaweeraa la yidhaahaa tobabaa la yidhaahaa halxagaraa la yidhaahaa dhinacan qalaf haddii la aadano waa la yaqaanaa meesha jiraan waa Ethiopia gudaheeda kilinka shanaad wax ku leeyahay Soomaali wax kuma laha dawladda kacaanka
oo Soomaali jecel ahayd ayaa soo gelisay oo maamulkuna wax ka siisay dadkana ku dirtay laakiin maanta hadii la yiri muxuu ahaa deegaanay waa la yiri deegaanka waxba kuma laha nimanka ayaga xildhibaan laakiin mar hadiiba aad tiri dawladii dhexe aad meesha keentay soo ma fiicna inaad laftigeeda ku tixgelisaan raani hadda waxa fiiri dawladii dhexe waxay keentay waa lagu keentay waxa dibka keenay ayada xadaaltay markii hore lama rido lama dagaalameen maanta waa deegaanay waxaan ku aniga maanta aan ogolahay aniga waaba sheegnay waxa nin wax sheeganay nin wax lagu sheeganayo adoon waxba dhaxdaanada ka rabin war meeshii tago soo xaq ka hadal adiga Soomaali soo batay adiga waxa lagu mumaayna saddex Soomaaliyeed ma taga yaa degande hadduu asaga wax ku leeyahay war waad gaddarantiina reer Bakool oo nimanka waxba idinku leeyna dhaha hadda niga gaddarin oo nimanka gaddarkiina wax ku leeyahay wax ka doonta dhaha laakiin waa ka arrintan dawladaha hadda muxuu ahaa yani ummadan muxuu cadaadisku ku haystay Itoobiya Kenya amal oo ay dabada kula jiraan maamulo ay gacanta ku haystaan wataan ayaa wax idin siin hadii waxba nagama qaadin arrintan hadda waxa la leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha loo gudbin doonaa codka iyo baaqa ka soo baxay ee dadka halka ku jiray qaalibaan ka ahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo muxuu ah baarlamaanka in loo gudbiyo wafdi xaqiiqo raadina loo diro marka ninkii muxuu ah maalin cad hadlay asaga ku ceedoobay meesha ayada aniga waxaan aaminsanahay marka meesha la tago ninka ceebta soo raacaysa waa u jeeda aniga waxaan rabaa gobolka Bakool in la tago la fiiriyo xuduudiisa gobolka Gadan la tago xuduudiisa la tago gobolka muxuu ahaa Jubbada Dhexe la tago xuduudiisa la fiiriyo gobolka Jubbada Hoose la tago la fiiriyo war sida dadka u degan yahay in la ogaado marka u horeysa marka la ogaado deegaanka sida loo kala degan yahay wax la qaybsan karaa horteedaba laakiin ma ku qabsaday waa ka xog badan waa ku dilaya waa ku dhacaya adeero taas waa mid maxamed saadil soo arrintan sababta u dhacayso waa federaalka dartiis ma kula tahay inta hadda dhibo taagan kuwa kale ka weyn inay iman karaan federaalka horta aan raadinayna federaalka ma ahayn federaal waxa rabnaa anaga nin walba xukunkiisa soo madax banaan yahay laakiin federaal dhul lagu dhacayo dad la soo musaafirinay dagaalada lagu keenayo baabuur lagu keenayo federaalka aan raadinayna ma ahayn kan kaas waxaan leeyahay Soomaalida waa inay ka tashataa federaalkii la raadinayay oo nin walba deegaankiisa lagu xurmeeyo oo asaga ka taliya ahaa waa in loo noqdaa dadkan dadka la isku soo raraayna la diidaa Soomaalida ka tashan qabaaniga